shirkii afgarad iyo ayatalis ee beesha galbeedka gobolka Sanaag ayaa si rasmi ah uga furmay dooxada dagaal ee duleedka degmada Ceerigaabo. Munaasabadii furitaanka shirka oo si ballaaran loo soo agaasimay ayna ka soo qayb galeen madax dhaqameed, siyaasiyiin, mas'uuliyiin iyo marti sharaf tiro badan. Ayaa waxa ugu horreyn halkaas hadal ka soo jeediyay guddiga qabanqaabada shirka afgarad iyo ayatalis. Shirkan muddo badan bay soo waxaanu ka ahay qabanqaabo. Waxaan ogahay shirka in dad fara badan ay ka geysteen, gacan ka geysteen hirgelintiisa. Ilaa iyo dibad ilaa uu imanayay dagaar dad fara badan oo sharaf leh oo madax dhaqameed leh oo siyaasiyiin leh mutacallin leh oo haween leh oo dhalinyaro leh ayaa shirka ka qayb qaatay. waxaanu kaloo aad ugu mahadnaqaynaa ergada loo yeedhay ee aqbashay ee sidaa isugu timi. waxa weeye shirka ayatalis magaciisa waa kan gudub dhabarkeena ku yaal waa afgarad iyo ayatalis macnaha labada kelmadood xambaarsan tahay inta halkan fadhidana way garanaysaa. waa macna aad u miisaan weyn. waxaanu hindisnay in beeshaas ay ka tashato aayaheeda. waxa iyaguna munaasabadii furitaanka shirkaasi ka hadlay xubno tiro badan oo ku hadlayay afka madax dhaqameedka beesha galbeedka gobolka Sanaag. ciidayoonis halka waa isugu keenay kuwii u dhawaaqay baan nahay, kuwii u baaqay baan nahay, kuwii gogasha dhigay baan nahay. ilaah baa mahadle waa mahadnaqaynaa si ay nooga soo ajiibeen hawsha iyada. reerka dhulka degan ee magaca la sheegay leh waxa uu u shiray dayac fara badan ayaa ku dhacay. wuu dayacmay in dayaca lala dagaalamo. boqor Ismaan Maxamuud Buurmadow ayaa isaguna ka hadlay munaasabadii furitaanka shirkaasi isagoo halkaasi ka shaaciyay xubnaha loo doortay shir gudoonka hogaaminaya shirka. kan waxa lagu wareejiyay oo aanu maanta ansixinay madax dhaqameedkii hawsha tan shirka gacanta ku hayay. waxay ansixiyeen guddi ka kooban 5 xubnood. waxaa gudoomiyaha u ah Cabdiqaadir Faarax Maxamuud, Axmed Cabdi Muuse, Cabdi Cawad Cabdulle, Cabdi Mire Axmed, Imaan Cabdi Cabdulle. 5 xubnood aad arkaysaan. sharaf ayay noo tahay inaanu raggaas oo ku filan ay noqdaan ciddii shirka noo daadihinaysay. waxaa kaloo iyaguna munaasabadaasi hadal ka soo jeediyay badhasaabka gobolka Sanaag, wasiir dowlaha wasaaradda dawlista iyo hawada Soomaaliland iyo mas'uuliyiin tiro badan. waxa weeye waa shir dhammaan beelaha gobolka Sanaag iyo Soomaaliland iyo xukuumaduba ay diiradda ku hayso la soo eegayo oo la leeyahay maxaa ka soo bixi doona. ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu shirku noqdo shir guuleed. ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay shir mustaqbal. ilaahay waxaanu ka baryaynaa in 100 sanadooda soo socda lagu sheekaysto. gudoomiyaha cusub ee loo doortay shir gudoonka shirka afgarad iyo ayatalis Cabdiqaadir Faarax Maxamuud oo gabagabadii furitaanka shirkaasi ka hadlay ayaa halkaasi ka cadeeyay inay si cadaalad ah ku maamuli doonaan muddada uu shirkaasi socdo. xil ballaaran baana saarteen noogu duceeya. waxaan annaguna ku dadaalaynaa xil daacadnimo leh oo wanaagsan oo sinaan leh inaanu ku shaqayno oo aanu xilka anoo mateen ka soo baxno. Yunis Axmed Saalax, telefishinka caalamiga Universal TV, Ceerigaabo.